بسم الله الرحمن الرحيم aad baad mahadsantihiin waan maqalnay warka uu sheegay wasiir Sacad Cali Shire oo uu leeyahay waxa noo socda anaga Puntland wada hadallo warkaasi waa war aan waxba ka jirin waa war siyaasi waa warkii uu horay madaxweyne Muuse Biixi u lahaa madaxweyne Cabdiweli anaga heshiis iyo qodob baan ku heshiinay waxay ka mid tahay waxyaalaha lugooyada ah ee reer Soomaaliland loo sheegayo khiyaaliga ah ee ummadda laga dhaadhicinayo waligeed runta loo sheegin qodobada uu akhriyay waxay ka mid ahaayeen qodobadii intaan aysan markii dalka soo weerareen tukarraq qodobo ayuu in ka soo jeediyeen ayuu hadda wuxuu ka dhigayaa qodobo cusub oo maaragtay muxuu ahaa ama wada hadalladu ku socdaan ama ay Puntland aqbashay waxaasi wax jira ma aha su'aashaas aan rabo inaan weydiiyo wasiir Sacad Cali Shire waxa weeye xagee Puntland kula heshiinaysaa wasiirka ma laascaan uu leeyahay ma waxay kula heshiinaysaa Puntland Garowe iyo laascaan dhexdooda waxaan u sheegnay shacabka Soomaaliyeed horeyna ugu sheegnay shacabka Somaliland laascaano iyo gobolka Sool waa la xoreynaya waa dhul Puntland waa dhul dastuuriya shacabkooda iyo dadkooda waa la xoreynaya haddii in muddo ay Somaliland ay dhex socotay macnaheedu ma inay leedahay haddii iska dhaadhiciyeen xuduud baad xiran ka dhaan xagee ku taala xuduudu yaasi xuduud sameeyay ma laascaana xuduud Hargeysa u noqonaysa ma madaxweyne Muuse Biixi baa laascaan la siinaya maxaa lagu wada hadlayaa bal su'aasha aan weydiinayo waxa weeye wasiirka maxaa lagu wada hadlayaa laascaana leeyahay miyaa leedahay mal Garowe iyo laascaan dhexdooda heshiis kula galbaad leedahay bal shacabka Soomaaliyeed waxaan ku weydiinaynaa bal maqashii waxaad leedahay aan kugu heshiino in Somaliland Puntland ma haysato duulaan kuma aha mid doonayso dad Soomaaliyeed weeye nabad bay la doonaysaa barwaaqay la doonaysaa baraaray la doonaysaa laakiin inta dool la soo duulo oo qoryo la soo qaato shacabka laascaan la caburiyo dhowr tiknika lagu wararaceeyo muxuu ahaa gobolka Sool dhexdiisa in la yiraahdo Ingiriiska baa noo soo sheegay meeshaan waxa weeye xuduud bay ahaan jirtay waa rawaayadaha lagu wada weeye shacabka Somaliland hawaan toobaan shacabka Somaliland hana fiyo baadan waalidan madaxdoodu sheegayso ee lugooyada ah ka waanto runtan ha ogaada shacabka Puntland waxay u sheegaysaa dawladdu gobolka Sool waa Puntland dadkiisu waa Puntland laascaano waa Puntland waa laascaano gobolka Sool waa la xoreynaya shacab iyo dal Puntland ay leedahay oo reer Soomaaliyeed u haysan doona ma jirto intaas waxaan u sheegnaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland hana u diyaar garoobaan garab istaaga qarannimadooda iyo dawladnimadooda iyo sharaftooda iyo ciidankooda mujaahidiinta ee dalkooda difaacaya waana mahadsantihiin